kulan wacan daawadayaal halkan waa janaalka Hubaal News qodobada wararka daawad doontaan waxaa kamid ah Mahad Salaad oo tallaabo qaaday kadib warkii la xiriiray in mushaaraadka laga jartay shaqaalaha NISA Jubbaland oo sheegtay in laga leexsaday lacago malaayiin dollar ah weerar ay qorsheynayeen al-shabaabna waa laga hortagay iyo qaybta dambe warkeena oo aad ku daawad doontaan Soomaaliya marka la eego yaa u muhiimsan Itoobiya iyo Masar qodobadaasna waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janaalka Hubaal News fadlan nagu soo biro oo kamid noqo saaxiibada ku xiran janaalkan ay ka helaan wararka joogtada ah maalinlahan ku baahina aragtidiina halka hoose noogu reebo muuqaalka la sii wadaaga asxaabtiina laagtiina hanaga hilmaamina haatan ku soo dhawaado qodobada maqasheen oo faahfaahsan agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed Mahad Maxamed Salaad oo la magacaabay 26 May sanadkan 2022 ayaa waxa uu kor u qaaday dhammaan mushaaraadka ay qaataan saraakiisha ciidamada iyo howlwadeenada kale ee ka tirsan hay'adda waa sida lagu faafiyay baraha bulshada agaasima Mahad oo goobjoog u ahaa duruufaha hareeyay saraakiisha iyo ciidamada NISA ayaa go'aansaday sida la tilmaamay inuu kordhiyo xuquuqda si sare loogu qaado dareenka qeybaha ka hoos shaqeeya ee hay'adda iyadoo taas looga gol leeyahay in si hufan loo guto waajibaadka shaqo markii ugu horeysay ayaa mushaarka saraakiisha ee ciidanka hay'adda NISA waxa ay la mid noqdeen baa la yiri mushaaraadka ciidamada kale ee qaranka halka markii hore ay ka hooseeyeen haddaba isbedelka lagu sameeyay qeybaha kala duwan ee hay'adda NISA mushaaraadkoodana waxa ay kala yihiin sida lagu faafiyay baraha bulshada gaashaanle markii hore waxa uu mushaar ahaan u qaadan jiray $400 halka hadda looga dhigay $500 labo jaamici ama qofka jaamacadda soo dhameeya waxa uu qaadan jiray $300 halka hadda looga dhigay $350 saddex qofka wata shahaadada dugsiga sare markiisii hore waxa uu qaadan jiray mushaar dhan $200 haddana waxa looga dhigay $300 afar mudane ama shaqaalaha caadiga ah ee aan shahaadada haysan waxa uu qaadan jiray $150 waxaana hadda looga dhigay $200 shan askariga dablaha waxa uu mushaar ahaan markii hore loo siin jiray $150 balse hadda waxa looga dhigay $200 sidoo kale taliyaha hay'adda NISA Mahad Salaad ayaa go'aamiyay in askarta iyo saraakiisha hay'adda ee geeriyooday ay qoysaskooda xuquuq ka heli doonaan dowladda halka markii hore aysan lahayn wax xuquuq ah waa sida lagu shaaciyay warkan mushaar kordhinta ciidanka saraakiisha iyo howlwadeenada hay'adda ayaana ka dambeysay kadib markii dib u eegis lagu sameeyay sida la tilmaamay shakhsiyaad badan oo hay'adda aanan u shaqeyn oo dhaqaale badan qaadan jireen iyo kuwa kale oo qaadan jiray xuquuq ka badan inta ay xaq u leeyihiin si kastaba ha ahaatee warkan cusub ee ku aadan in mushaar kordhintan lagu sameeyay qeybaha kala duwan ee hay'adda NISA ayaa waxa uu yimid xilli dhawaantan la baahiyay isla markaasna janaalkan xataa aad ka daawateen in mushaaraadkooda hoos loo dhigay qeybaha kala duwan ee shaqaalaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka warkan oo bilowgii baraha bulshada ay ku faafiyeen xubno ku dhadhawaa agaasimihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa waxaa lagu kala shaaciyay sida mushaaraad dhimista loogu sameeyay xubnaha kala duwan ee hay'adda NISA shaqaalihii haystay shahaadada masterka waxaa laga dhigay mushaarkooda $550 halka markii hore ahayd $1,000 ilaa $1,500 waa sida waqtigaasi la shaaciyay labo shaqaalihii shahaadadoodu ahayd digriga waxaa laga dhigay $350 halka markii hore ahayd $700 ilaa $1,000 xirfadlayaasha ka duwan labada qayb ee hore oo lagu qiimeyn jiray aqoontooda iyo mushaar ahaanta ay qaadan jireen inta u dhaxaysay $500 ilaa $1,000 waxa lagu soo koobay hadda $200 oo ay ka wada siman yihiin waa sida la tilmaamay qaalaha qaabilsanaa dhinaca xuuraanka oo qaadan jireen guna joogta ah oo iyaguna lagu soo koobay mushaar dhan $400 sidoo kale waxa isla warkaasi ay faafiyeen taageerayaashii hore iyo waliba saaxiibada dhow Fahad Yaasiin lagu shaaciyay in la joojiyay shidaalkii ay lahaayeen saraakiisha howlgallada degmooyinka iyo kuwa dabagalka si kastaba waxa su'aalo badan ay ku gadaaman yihiin wararkan siyaabooyinka kala duwan loo baahiyay ee kala faafinayaan taageerayaasha dhow ee dowladda hadda ee madaxweyne Xasan Sheekh gaar ahaan Mahad Salaad ku dhow iyo kuwii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gaar ahaan sida dhow ula shaqeynayeen ama taageerayeen taliyihii NISA ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir balse xaqiiqda ayaa in xogta rasmiga mushaaraadka shaqaalaha ay og yihiin xubnaha ka shaqeeya hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya NISA
geesta kalena Jubbaland waxa ay dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeysay arrin xasaasi ah oo la xiriira lacag laga leexsaday. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaacisay in dowladda federaalka ay siyaasadeysa lacag $1 milyan oo dollar ah oo xukuumadii ra'iisul wasaarihii hore Maxamed Xuseen Rooble u qoondeysay gurmadka abaaraha. wasiirka wasaaradda qorsheynta Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa sheegay in lacagtaasi kaliya maamulka Jubbaland laga soo gaarsiiyay tiro 2 jeer ah oo min $10,000 oo dollar loo soo diray. sidoo kale waxa uu tilmaamay wasiirku in lacagaha iyo deeqaha macaawinada ee loogu talagalay abaaraha ay noqdeen kuwa lagu raasado saaxiibtinimo ama xilal sarsare sida wasiir. waxa ay ahayd in deeq kasta oo ka timaada caalamka in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka tashadaan sida loo qaybinayo, balse taasi meesha way ka baxday oo dad gaar ah ayaa jeebka ku shubtay ayuu yiri. wasiirka ayaana Xuseen arintan uu madaxweynaha Jubbaland u gudbiyay madaxda sare ee dowladda Soomaaliya isla markaasna ay ka filayaan in madaxweyne Xasan Sheikh uu aqbalo in deeqaha caalamka uga yimaado Soomaaliya loo qaybiyo si siman oo wada tashi ah. arintan ayaana imaanaysa xilli dhowrkii sano ee la soo dhaafay oo aad u xumaa xiriirka dowladii uu hogaaminayay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka Jubbaland taas oo meesha ka saari doonta dowladda cusub ee Soomaaliya. maamulka Hirshabeellana waxa ay ku dhawaaqeen inay ka hortageen weerar ay qorsheynayeen Al-Shabaab. wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeere ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay jireen dhaqdhaqaaqyo ay wadeen ciidamada amniga kuwaas oo ay ku bartilmaameedsanayeen ururka Al-Shabaab. wasiirka oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in maamul ahaan ay diyaarsadeen qorshayaashii lagula dagaalami lahaa kooxda Al-Shabaab ee looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugayeen Hirshabeelle. sidoo kale waxa uu hadalkiisa uu intaas ku daray in ciidamadu ay howlgalo gaar ah ka fuliyeen deegaanada ay Al-Shabaab ka soo qorsheynayeen weerarada ay ka fuliyeen deegaanada Hirshabeelle isla markaasna ay ka soo qabteen maxaabiis iyo hub fara badan oo ay ka tageen waa sidoo hadalku dhigay. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeere wuxuu tilmaamay inay jiraan dhaqdhaqaaqyo Al-Shabaab ka wadaan dhinaca xuduudaha hase yeeshee maamulka Hirshabeelle iyo dowladda Soomaaliya oo iskaashanaya ay ka hortageen qorshahooda. hadalkan ka soo yeeray wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeere ayaana ku soo beegmaya xilli dhawaan qarax ismiidaamin ahaa oo gaari loo adeegsado uu ka dhacay magaalada Jowhar isla markaasna xubno ka tirsan Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan xadka dowlad deegaanka Soomaalida galbeed uu la wadaago gobolka Hiiraan. waa hagaagay daawadayaal iminkana waxaan eegaynaa Itoobiya iyo Masar yaa u muhiimsan Soomaaliya. xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsanaa baarlamaankii 10aad ee dalka isla markaasna xubinka ah baarlamaanka Carabta ayaa ka hadlay muranka wabiga Niil ee Itoobiya iyo Masar iyo tallaabada ay tahay inay qaado Soomaaliya. Dalxa oo wareysi gaar ah bixinaya ayaa shaaca ka qaaday in labada dowladood ay muhiimad gaar ah u leeyihiin Soomaaliya loona baahan yahay in dowladdu ay ka fiirsato go'aanka ay ka qaadanayso maadaama labaduba ay xiriirna la leeyihiin. waa laba dal oo haddana annaga midba midka kale inoo leeyahay muhiimad gaar ah ayuu yiri. Itoobiya waxay inoo leedahay muhiimad gaar ah oo ah xuduudda ugu dheer ayay Soomaaliya la leedahay halka Masar oo maanta ah dal qadiimi ah oo xiriir soo jireena aan la leenahay ayuu wareysigaas ku yiri Maxamed Cumar Dalxa xildhibaan hore. sidoo kale wuxuu kula taliyay dowladda federaalka inay dhexdhexaad ahaato isla markaasna ay ilaaliso xiriirka ay la leedahay labadaasi wadan. waxa kale oo tusaale dhow soo qaatay wabiyada Jubba iyo Shabeelle oo uu sheegay inay ka yimaadaan Itoobiya halka Masarna ay waxbarasho u joogaan arday Soomaaliyeed. Soomaali badan ayaa ku nool Masar oo waxbarasho ku haysato sidaas oo kale Itoobiya kama marna oo waxa ka yimaada wabiyada Jubba iyo Shabeelle. marka labadan dhinacba Soomaaliya waxa ay ka mudan yihiin inay xiriir wanaagsan la yeelato ayuu sii raaciyay hadalkiisa. hadalkan ayaana ku soo aadaya iyadoo xiisadu dhacaysa Addis Ababa iyo Qaahiro ay gaartay meeshii ugu sareysay taas oo ka dhalatay biyo xireenka wabiga Niil. si kastaba dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iska fogeysay in Masar ay la safartay kadib booqashadii uu madaxweyne Xasan Sheikh ku tagay magaalada Qaahira ee dalka Masar. guud ahaan daawadayaal wanaagta warkii oo aad kala socoteen Hubaal News fadlan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada ku soo xirmaya channelkan aragtidaada halka hoos noogu reeb muuqaalka inaad la sii wadaagto asxaabtaada naga hilmaamin laagtiinana waa inoo dhiirigelin waana ku mahadsantiin daawashadii la socodka warka channelka Hubaal News.